Assalaamu calaykum soo dhawow daawade maanta waxaan sharxi doonaa filim Amerikaan ah oo lagu magacaabo The Thinking daawo oo iskana taxadar filimku waxa uu ku bilaabanayaa iyadoo dhulku uu cariiri yahay dadka tiradooda awgeed qaramada midoobay waxay cilaaminaysaa in dawlad walba dadkiisu uu yareeyo 5% si loo raaco awaamirta Mareykanku waxa uu soo saaray qaacido uu ugu magac daray The Thinking kala yareynta dadka si loo fuliyana ardayda waxa waajib ku ahayd inay galaan sanad walba imtixaan ardayda ku dhacay imtixaankana waxa lagu xukumi doonaa dil waxaana lagu diri doonaa cirbado khatar ah gabadhan waxa lagu magacaabaa Lena Michelle waxay dugsiga sare isla dhigtaan Simon laakiin Simon waxa ku adag inuu xaliyo xisaabta waxa uu Lena ka dalbaday inay wax u samayso waxay u soo saaraysaa sanduuq ay ku jiraan miyaaradaha indhaha marka uu gashtana waxa awood u yeelanayaa inuu ka shaqeeyo xisaabta dhinaca kale waxaan aragnaa nin lagu magacaabo Edward Billick waa wiil uu dhalay gudoomiyaha gobolka Texas Dan Reddick Billick waxa uu habeenka ka soo dhuntay gurigiisa si uu ula kulmo saaxiibtiisa oo lagu magacaabo Ella kadib waxa ay ka sheekeysanayaan imtixaanka ay galayaan bari iyadu waxay aad ugu murugaysan tahay imtixaanka laakiin isaga ayuu aad u dejinayaa wuxuuna u sheegayaa in imtixaanka bari uu fududaan doono nasiib xumase xariif kamid ah waardiyaasha aabihii ayaa toosh ku qabanaya ilfuursana Billick waxa uu soo laabtay guriga laakiin aabihiisu waxa uu dareemay murugta wiilkiisa maadaama gurigu uu ka dhuntay xili haween ah subaxii xigay iridii iskoolka waxa la soo dhoobay ciidamo tiro badan si ay u baaraan ardayda Billick waxa uu Lena ka codsanayaa inay siiso miyaaradaha indhaha balse waxay u sheegtay inay iibisay dhamaantood Lena iyo saaxiibkeedana waxay soo aadeen safka baaritaanka ardayda mid kamid ah ayaa isku dayay inuu qish gacanta ku qorto laakiin waxa qabanaya ciidanka wuxuuna isku dayayaa inuu cararo ugu dambeynna waxa qabanaya ilaaliyaasha ardaydu waxay galeen iskoolka Billick waxa uu hab siinayaa saaxiibtiisa ka hor inta uusan gelin howlka imtixaanka waxa bilaabmay imtixaanka waxayna haystaan waqti 2 saac ah Lena waxay aad uga shaqeynaysaa imtixaanka si cabsi la'aan ah waxayna noqotay qofkii u horeeyay ee dhameeyay marka uu dhamaaday imtixaanka wax yar kadib waxa soo baxday natiijada macallimadu waxay ku dhawaaqaysaa dhammaan natiijooyinka ardayda dhacdana mid ayaa loo bixinayaa qaarna inta aan la soo gaarin ba ay bilaawayeen inay cararaan balse ilaaliyaasha ayaa qabanaya kadibna way garaacayeen nasiib wanaag Lena iyo saaxiibkeeda Kyle iyo Billick way baaseen laakiin macallimada ayaa aakhirkii u yeertay Billick saaxiibtiisa Ella waxaana loo bixiyay banaanka Billick waxa uu soo baxay banaanka wuxuuna wacay aabihiisa si uu u caawiyo laakiin wuu diiday wuxuuna u sheegay in amarku uu ka weyn yahay wax walba waxa uu bilaabay inuu la dagaalo waardiyaasha wuxuuna Ella ku amrayaa inay cararto laakiin ugu dambeyn taama aysan dhicin hal sano kadib ka hor hal maalin inta aan la gelin imtixaanka kala yareynta waxa albaabka u soo gargaraacay macallimada Bersh si ay niyadda ugu dejiso Lena oo aad u murugaysneed maadaama sanadkan ay imtixaanka galayso walaasheed ka yar isla waqtiga Billick waxa uu bilaabay inuu qolkiisa dhexdiisa isaga duubo muuqaal uu kaga hadlayo imtixaanka uu galay bari isagoo aad u murugaysan maalinkii imtixaanka Lena waxay iskoolka u soo waday walaasheed Koreena fasalka dhexdiisa carruurtu waxa loogu sheegay qaabka kala yareynta dadka iyo sida dawladaha ay u kala isticmaaleen wadamada qaar waxay waalidku ku amreen inay haystaan kaliya hal cunug qaarna waxay qaateen in la laayo dadka da'da ah oo duqoobay halka Mareykankuna uu qaatay go'aan ah in hawada lagu cuno ardayda liidata ardayda yarna waxay gudgaleen imtixaankooda nasiib wanaag Koreena way baastay halka Lena iyo saaxiibkeed Kyle ay u sii socdaan hoolka imtixaanka geesta kale Billick aabihiis waxa uu arkay muuqaalka uu duubay wiilka ka hor inta uusan gelin imtixaanka wuxuu wacay ilaaliyaha uu sareeyay imtixaanka oo lagu magacaabo Mason King wuxuuna ku amray inuu natiijada u fiiriyo wiilkiisa kuna bedelo qof kale si uu u baaso markii uu dhamaaday imtixaanka macallimadu waxa ay bilowday inay yeeriso ardayda dhacday la yaab waxa ku jirtay Lena macallimadu waxay istaajisay waardiyaha waxayna u sheegtay Lena inay tahay ardayda kaliya ugu dadaalka badan fasalka nasiib xumase waxba laga bedeli karin natiijada maadaama ay hore u soo baxday laakiin macallimadu Lena waxa ay si hoose u siisay fure si ay isaga soo furto qolka hadii ay jaanis hesho dhinaca kale ardaydii baastay waxay bilaabeen inay ka qayb galaan xafladoodii waxaana dadkii meesha ka hadlayay kamid ahaa Dan aabaha Billick wuxuuna sheegay inuu mar kale isu soo sharaxayo wuxuu ku faanay habka uu maareeyay waxbarashada gobolka Billick waxa uu maqlayay hadalka aabihiisa balse waxa uu soo dhuuntay dhinaca iskuulka kadibna waxa uu la dagaalay mid kamid ah ilaaliyaasha isla xilligaana Lena iyo ardaydii kale ee dhacday waxa la geliyay qol waardiyaashuna waxay ku amreen inay iska bedelaan dharka ayna xirtaan dharka maxaabiista laakiin si kadis ah Billick waxa uu jaray korontada ardaydii kale waxay heleen fursad ay ku baxaan laakiin nasiib daro maysan suurtoobin marka laga reebo Lena oo haysatay furo ay siisay macallimadeeda waxay u soo baxday banaanka laakiin waqti yar kadib waxa qolka soo galay Mason wuxuuna ogaaday in kaliya ay maqan tahay Lena waxay bilaabeen raadinteeda laakiin Billick ayaa arkay Lena wuxuuna u sheegay in natiijada ay wax ka qaldan yihiin kadibna waxay soo galeen god yar oo habaqaad ah si ay u soo gaadaan natiijooyinka iyo waxa qaldan Dan waxa soo gaaray warka wuxuuna soo wacay Mason si uu weydiiyo waxa dhacay Lena iyo Billick oo ku socda godka waxa la go'day Billick mid kamid ah duleeladii waxa uu ku dhacay barkad weyn laakiin waxa soo badbaadisay Lena waxay ka soo saartay barkada laakiin ma neefsanayo maadaama uu biyo cabay waxyar
kadib waa uu soo kacay waxaana iska bedeleen dharka waxay soo aadeen mar labaad godka si ay u galaan qolka imtixaanka laakiin qolka iridiisa waxaa taagan waardiyo intaas waxaa sii dheer furihii ay wada leena waxa uu ku dhacay waardiyaha hortiisa nasiib wanaagse ma uusan dareemin waxay raadiyeen qaab ay ku soo qaadaan furaha waxayna keeneen ra'yi ah inay aadaan shaybaarka iskoolka si ay uga soo qaataan birlab waxay soo aadeen shaybaarka waxayna soo qaateen birlabtii laakiin intaysan soo bixin waxaa shanqortoodii dareemay waardiyaha wuxuu soo aaday dhankooda nasiib wanaagse leena waxa ay gashay godka balse beleg waxa uu la dagaalay waardiyaha kadibna waxa uu soo gashay dharkiisa leena birlabtii waxa ay ku soo qabatay furaha laakiin waxaa qabtay waardiyaha balse markaan waxa uu ahaa beleg oo soo gashtay dharka waardiyaha dhinaca kale ilaaliyihii qolka waxa uu Mason u sheegay in leena ay haysatay furo sidaana ay ku baxsatay Mason waxa uu ogaaday in mid kamid ah macallimiintu uu siiyay furaha wuxuuna isugu yeeray dhammaan macallimiinta waxa uu mid walba weydiiyay furihiisa macallimadii waxay bilowday inay la kaftanto macallinaya taagneed waxayna si xariiftinimo ugu qaadatay furaha dhanka kale leena waxay gashay qolka waxayna furtay kombiyuutarka nasiib xumase Mason waxa uu ku xiray baasweer leena waxay message u dirtay Kayla kaas oo qatar ku ah hackinka kombiyuutarka waqti yar kadib Kayla waxa uu arkay message-ka leena kadibna waxa uu furay kombiyuutarka leena waxay aragtay in ay baastay waxayna heshay natiijo ah 98% laakiin way yaabtay markay aragtay in beleg uu dhacay balse loo soo qoray inuu baasay waxay sii baartay natiijooyinkii hore waxayna ogaatay Ella oo sanadkii hore gashay imtixaanka inay baastay iyadoo natiijo ahaan haysatay 88% balse loo qoray inay dhacday sidoo kale leena waxay ogaatay in gudoomiyaha uu doonayay kaliya inuu dilo qofka uu doono waxay u sawirtay natiijooyinkii Kayla nasiib xumase waxaa timid korontada waxaana arkay Mason leena waxay u soo carartay banaanka laakiin waxaa qabtay Mason dhinaca kale beleg waxa uu galay qolkii ay ku xirnaayeen ardaydii isagoo wata dharkii waardiyihii qolka ayuuna ku amray inuu fasaxo ardayda waardiyihii waa u diiday kadibna labadooda ayaa isdagaalay balse markii dambe waxaa la ogaaday inuu yahay beleg geesta kale Kayla waxa uu arkay sawirkii ay u soo dirtay leena wuxuuna aad ula yaabay natiijada Kayla waxa uu lahaa saaxiib oo aad iskugu dhow yihiin ka uu ka shaqeynayay TV-ga wuxuu u diray natiijada wararkuna waxa uu gaaray dhammaan gobolka kadib fashilkii gudoomiyihii Dane dadka ayaa aad uga carooday waxayna u sheegeen inay kala laaban doonaan inuu soo noqdo mar labaad isagoo isdifaacayna waxa uu sheegay inuusan arinta asiga ka dambeyn wuxuuna dusha u saariyay Mason halka Masonna uu ku amray inuu dilo dhammaan ardaydii sida saxda ugu dhacday imtixaanka oo uu ku jiro wiilkiisa beleg isla waqtigaana la sii daayo ardaydii baastay waardiyaashii waxa ay qaadeen ardaydii sida saxda ugu dhacday waxayna ku dureen cirbado intaa kadib leena markii ay u soo baxdo banaanka waxa ay la kulmaysaa walaasheed ka yar ee Koreena iyo macallimadeedii Besh saacada kadibna waxaan aragnaa meydadkii ardaydii dhacay oo dhaqaaqayo balse waxaa cadaatay in cirbadaha la duro ay ahayd kaliya mid suxtin ah markii meydadkii ay yimaadeen hoos waxay arkeen inay joogaan meel u eg warshad ayna ka buuxdo qalabka ay soo saarto shirkadda Asuraj Global waxaana ka shaqeynayay dad aad u tiro badan oo ay ku jirto Ella oo ah saaxiibtii hore ee beleg waxaa cadaatay in ardaydii hore loogu xukumay dilka ay halkan ka shaqeynayay oo aan la dilin iyaga oo ka shaqeynaya shirkad soo saarta bishii malaayiin dollar intaas oo dhanna waxay ahayd qorshe uu watay gudoomiyaha tanna waxay ugu magac dareen istiraatiijiyad lagu helo shaqaale bilaash ah filimkan waxa uu soo dhamaanayaa beleg iyo saaxiibtiisa hore Ella oo ku wada kulmay warshada waxaan arkay komentiyadiina quruxda badan ee aad ku soo qorteen muuqaalkii hore I hope muuqaalkana inuu idin xiisan gelin doono waana rajeynaa in muuqaalkan aad gaarsiin doonto ugu yaraan hal qof mahadsanid ra'yigaagana waa inoo muhiim